barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur ayaa maanta xilkiisii rasmi ugu wareejiyay suduwaha cusub ee hay'adda dhawrista tayada gobolka Sanaag Dr. Yuusuf Maxamuud Saleebaan Bilaal. munaasabad ballaadhan oo lagu qabtay xafiiska barasaabka gobolka Sanaag ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta laamaha dowladda ee gobolka Sanaag. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay suduwaha hay'adda dhawrista tayada Somaliland Dr. Yuusuf Maxamuud Saleebaan, isagoo ku dheeraaday ahmiyadda ay hay'addani u leedahay gobolka iyo guud ahaanba qaranka. wareejin ducun baa kulli ugu muhiimsan kulli hay'adda dhawrista tayada haddaan ka warramo waa hay'addii baan odhan karaa saddexaad ee qaranka. markaan leeyahay saddexaad, marka bulsho meel ku nooshahay oo dawlad tahay waxa ugu horeeya waa amniga, waxa ku soo xiga waa caafimaadka. kulli hay'addan waxay u xilsaaran tahay taa labaad oo dadkii caafimaadkeeda ay ilaalinayso. markaanu leenahay caafimaadkii bay ilaalinaysaa, dadka marka laga hubiyo adeegyadii ay isticmaalayeen, waxay cuni lahaayeen iyo dawadii ay isticmaali lahaayeen, kulli caafimaadkii bay soo geleen. waxaan aada ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha hay'adda dhawrista tayada muuse xasan xaaji yuusuf oo ay golaaday inaan platformkan guddoomiyaha gobolka uga noqdo. kulli guddoomiye intuu joogay xarunta ama guddoomiye ahaa, hay'addu meel sare gaadhay, waxay samaysatay xarun, sidoo kale shaybaadhkii qaranka la keenay, sidoo kale istaandarhaan markii ugu horreysay dalka laga hirgeliyey. ka gobol ahaan waxaanu la jaan qaadaynaa horumarka wasaaraddu ama hay'addu ku kacday. waxaanu diyaar u nahay inaanu shaqadii gobolka naloogu idmaday aanu siday tahay uga shaqayno. haddii la haydmo dhammaan ganacsatada gobolka iyo cid walba oo shaqada iyada khusaysana waxaanu leenahay sida guddoomiyuhu sheegay u diyaar garo. ducaynaynaa maxamuud Saleebaan, waxaanu leenahay xilka ilaahay ha kuu asturo. xubinta muhiima aada halka ka haysaan tayada ah, quality controlka ah ee aada wadid, aada ka shaqaynaysidna inaad dadkaaga iyo dalkaaga badbaadisid iyo naftaadaba, ilaa waxbaad la cunaysaay oo wixii hadday xanuun qaadana waad la qaadaysaay, inaad ka jeegaraysid waa muhiimad aada kusoo biirtay oo aad haddaad ka shaqaynaysid. dadkana sidaa uu sheegay guddoomiyuhu iyo xubinta iga horreysaba waxaan leenahay war wixii wax dhacay hayow iminkaba iska ururiyo iska guba, intaan idinka gamcaan laydinka soo qaban oo laydin xidhin. dadkeenna waxaa dilay tayo xumo oo aanaad moodaa inaanay dee ma garanaysaa dadku waxalaba waxa weeyaan waa bukaan socod weeye. waxaynu xilkii ku wareejinaynaa isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay hay-adda dhawrista tayada. hay-addaasoo ah hay-ad ballaadhan oo macno weyn ugu fadhida gobolka iyo qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo dhan, iyadoo loo soo magacaabay isuduwe cusub oo inuu shaqadii dardar geliyo oo dhiig cusub lagu shubo. isuduwe in badan kasoo shaqaynaya xarunta dhexe ee hay-adda oo muddo dhowr sanadooda shaqadan kasoo shaqaynayay, aqoon badanna u leh, kartideedana leh. ciddii madaxda usoo magacowday waxaan leenahay isuduwe kusoo dhawow gobolkii Sanaag, kusoo dhawow xilkii cusbaa ee lagu soo magacaabay. hay-addani waxa ay badbaadisaa nafaheenna, nafaha shacabka reer Somaliland. waad og tihiin gobolka Sanaag wuxuu ku yaallaa xuduud, hadday bad tahay hadday beri tahayba. ciddii kantarooli lahayd ganacsatada ee ka eegi lahayd ummaddani waxa ay cunayso ama isticmaalayso waa lagaba maarmaan inay hay-addaasi gobolka ka hirgasoo ka shaqayso. annaguna waa soo dhaweynaynaa, xafiis kumeel gaadhina waa siinaynaa ay kusii shaqayso. waayo maanta waxaad og tihiin dadkan waxma wada akhriyaan. haddaad istiraahid xabad sharaaba iibso, qofku isagoon dheedkii iyo eegin buu sharaabkii iska cabaya. markaa haddii uu qofku israa raashin gado dheyd ma eego, hadduu israado qofku dawo iibso dawada waktigeeda ma eego, iska laqaya. intaanu laqin ciddii ka jeegarayn lahayd ee ka eegi lahayd ee ka baari lahayd waa hay-adda dhawrista tayada.
waxaan leenahay waa hay-adan u baahan nahay waa hay-ad nolosheenna iyo caafimaadkeenna iyo badqabkeenna ilaalinaysa